ميي وقيبته كونفور يقيب كميدا مدق وطبعا مركا la joogo koonfurna bari noqonaysa marka bari la joogana koonfur noqonaysa si kastaba ha noqotee waxa loo oran karaa xeebaha bari iyo koonfur qayb kamid ah ayaa baaritaanka ceelash 200 oo lagu qiyaasay charger la baaray hadaba Hurufad Media oo indhaweetaba xogahaasi raadinaysay isla markaana sidoo kale baaritaano aanu ku sameynay ku ogaanay in ay jiraan shirkadahaasi xogo waaweyn oo rasmi ah oo aan shacabka Soomaaliyeed la wadaagin inay soo baxeen hadaba waxyaalaha muhiimka ee waaweyn hadeerta jira ayaa waxay sheegayaan in horta ilaa hadeerto la hilaadiyay isla markaana la ogaaday in 3 ceel oo kamid ah 200 ee ceel ay noqdeen kuwa ugu hadaba ceelasha qaarkood ayaa darbo waxa la soo saaray inkastoo laga yaabo dad badan oo shacabka Soomaaliyeed aysan ogeyn inta fooste laga heli karo maxaad ka ogtahay inta fooste laga heli karo ceelashaasi saddexdan ceel horta waxay ku kala yaalanay hadeerta loo bixiyay ceelasha waxa loo bixiyay eeda waa ceelasha lamunad number 1 ka ee ugu weyn mid wuxuu ku yaala Hobyo midna wuxuu ku yaala magaalada Kismaayo duleedkeeda ama badda Kismaayo agteeda ayuu ku yaala midna wuxuu ku yaala Baraawe saddexda ceel saddexda gobol ee Mudug iyo gobolka Shabeellaha Hoose iyo gobolka Jubbada Hoose ka tirsan saddexda ceel ayaa waxay noqdeen saddexda ceel hadeerta wadnaha ee lagu tartamayo horta ugu horeyn waxa sida ogtiin badawasha Soomaaliya waxa jiray in heshiisyo caalami ah hore dawladda federaalka ee dawladda hore ee Soomaaliya ee military ahayd ay la gashay dawlado ay ka mid tahay Mareykanka iyo shirkado waaweyn ay ka mid tahay shirkadii loo jiray Conoco oo hadeerta Exxon Mobil ay ka wakiiltahay oo isku bedeshay ayaa kamid ahayd marka waxa waagaas hore baaritaanka hore ee Soomaaliya laga hayay waxa mid beriga waxaana ugu waaweynaa dhulka markaasi shidaalka lagu tuhmay ama deegaanada ugu waaweyn waxa kamid ah gobolka Sool deegaanka leeyahay Holhol la yiraahdo ayaa kamid ahaa deegaanada ay kamid tahay iyo degmada Xudun ee gobolka Sool ayaa kamid ahaa laakiin wax baaritaana badda lagu ma sameeynin Mareykanku waxa ciyaalihii aad ka adkeysanayay waxa kamid ah in heshiisyadaas la dhowro laakiin kolkii la sameeyay shirkadda leeyahay Some Oil and Gas waxa la ogaaday in ay badda ay cagaagaan shidaal aad u badan ayaguna arintaasi waxa hadaba hadeerto ay sheegaysaa wararkii ugu dambeeyay in saddexda ceel ay yihiin saddexda ceel ee saliida ugu badan ay ku jirto hadaba ceelka Baraawe ayaa waxa uu noqday ceelka ugu weyn ceelkaas waxa la aaminsan yahay in maalintii halkii maalin sida ay noo sheegeen dawladasiin dhinaca shirkadaha iyo waliba hay'adaha madaxa banaan ee ku dhow dabcan anagoo aan hadda jeclayn inaan magacyadooda aysan munaasab ahayn inaan sheegno laakiin baaritaanada aan sameynay Hurufad Media waxay ku ogaatay in 1 milyan oo foosto maalintii laga helayo ceelka Baraawe halka milyan ee foosto ee maalintii laga helayo waxa ay u dhigantaa markaasi in sanadkii laga sameynayo lacag gaaraysa ama dabcan lacagta sanadkii laga sameynayo ceelkaas soo saarayo waxa weeye waa 250 bilyan oo dollar waa billion not million waa billion 250 bilyan oo dollar sida Hurufad Media ogaatay hadaba ceelasha kale ayaa iyaguna kaalinta labaadna waxa haysta ceelka Kismaayo oo isaguna la aaminsan yahay in kala bar in ka badan oo foosto laga helayo maalintii kaalin saddexaadna oo ceelka Hobyo oo ciriirsaday ceelal kale ayaa jira sidoo kale waxa jira in deegaano kale oo ay kamid tahay gobolka Bari iyo waliba gobolka Sanaag ee xeebahiisa ayagana la tuunsan yahay in ay ceelal ku jiraan laakiin arintaas wali lama ogolaanin kadib markii ay diideen arintaasi Puntland iyo Somaliland in wax baaritaan lagu sameeyo si kastaba ha noqoto hadaba arinta hadeerta cad waa tan isla markaana waxa hadaba muuqanaysa in hadeerta ay magaalada gobolka Texas xarunta la yiraahdo Houston ayaa waxa ka dhici doona dhamaadka sanadkan oo inkastoo wali aan la qoondeen waa bisha November ama bisha December mid ahaan baa loo maleynaya shir looga hadli doono markaasi shidaalka Soomaaliya sida loo qaybsanayo ama dabcan sida loo maalgelinayo hadaba waxa jira qorshayaasha dhinaca heshiisyada saliidda ayaa inta badan waxa lagu saleeyaa in shirkaduhu ay ayagu qarashka ugu badan geliyaan shirkadaha ugu adag ee hadeerta ceelka Baraawe qarka u saaran ay ku guuleystaan waxa kamid ah shirkadda Exxon Mobil ee dalka Mareykanka laga leeyahay shirkadaas inkastoo goordame loolanka ku soo biirtay hadana waxa ay ka faa'iideystay awoodda dalka Mareykanka iyo saameynta uu ku leeyahay dalka Soomaaliya si kastaba ha noqoto shirkad kasta oo maalgelinaysa isla markaana soo saarta shidaalka Soomaaliya waa soo dhaweyn ayay mudanta laakiin waxyaalaha u baahan inay isweydiino isla markaana la fakurka ku sameeyay ayaa waxa kamid ah in shuruucdii dhinaca batroolka shuruucdii dhinaca qaybsiga kheyraadka shuruucdii u diyaar garowga loolanka heshiisyada in dhamaan arrimahaas ay jawaabahoodii wali ay dawladda federaalka ay u taalo isla markaana si muuqata aan loo kala markaasi saafin waxyaalaha ugu waaweyn ee shirkaduhu markaasi sameeyaan ama shirkadda Exxon Mobil ay sameeyaan doonto iyo shirkadda kaas ku guuleysata inkastoo ay jiraan shirkado kale oo idin sheegi doono iyaguna loolanka iyo liiskaba ku jira ayaa waxa kamid ah in ay qaadato markaasi qoondada ugu badan maadaama aysan dawladaha